shirweynihii qiimaynta warbixinta waxqabadka ee hay-adaha garsoorka ee dowladda deegaanka Soomaalida sanadlaha oo 4 maalmood la soo dhaafay ka socday magaalada Jigjiga ayaa la soo gabagabeeyay. Shirweynahan oo loo qabtay hay-adaha garsoorka deegaanka ayaa mid lagu dhageysanayo warbixinta waxqabadka hay-adaha garsoorka sanadka, waxaana intuu socday xoogga lagu saaray shaqooyinkii hay-adaha. Gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cali Baaruud Sheekh Axmed oo ka hadlay xiritaanka ayaa la dardaarmay dhammaan hay-adaha garsoorka inaysan soo laaban dhalilihii dhanka jilicsan isla markaana ay sii xoojiyaan dhinacyada daliilaha la soo jeediyey dhammaanta waxay noo yihiin dawo wax badan ka tari doonta geed socodka shaqo ee aynu gacanta ku hayno. waxyaabaha ugu muhiimsan maadaama dhammaan guddoonkii maxkamadaha halka ku sugan yihiin xillo ka saaran yahay in ay ka warhayaan shaqooyinka socda ee garsoor gacanta ku hayo. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye dacwadaha inoo imanaya inaynu xaqiijinno inay yihiin kuwo sharciga waafaqsan, ha noqoto dadka soo dacwanaya ama ha noqoto waxa lagu dacwanayo waddadii habka sharcigu u dhigay keliyana maraya. waxaan ogaanay in mararka qaar ay dhacaan in wax aynaan shaqo ku lahayn layna soo geliyo dabeetana natiijadu ay dhibaata ka soo baxdo. waxay ka soo bilaabmaysaa waa furista geed socodka ilaa gabagabada. caqabadda ugu weyn waxay soo baxdaa marka la taagan yahay fulinta. marka bilowga inuu noqdo halkaan culays ka saarayno, guddoonkuna uu xil iska saaro inuu shaqooyinka ka socda inta ka hooseysa oo dhan uu ka warhayo. sanadkan dadaalada la sameeyey waxaa ka mid ah inaynu kormeero joogto ah sameynay dhammaan heer gobol laga sameeyey, heer deegaan laga sameeyey, degmooyinka oo dhan la gaadhay, lana soo ogaaday meelaha u baahan in laga tiiriyo, ama aqoonta ha noqoto ama habshaqeed kale ha noqoto ama isxilqaan ha noqoto. dhinac walba waa la soo taabtay. tala bixin iyo cashara lagu bixiyey meelaha qaar, meelaha loo arkay in loo baahan yahay in lagu sixi karo tallaabo qaadna tala bixintoodu way soo gudbiyeen gobolladu. waxaan la hordhigi doonaa guddiga garsoorka ee heer deegaan si go-aan looga qaato. arrinta labaad waxaa weeye mid la xiriidha dhinaca aqoonta. waan dareennay kormeerada qaar badan oo ka soo baxay baa jira, waan ururinay xogahaasna waxaan isku dayi doonay inaan ku salayno tababarada aan qorsheynayno inaan u qabanno dhammaan maxkamadaha ee garsoorka. tababaro badan baa la siiyey, waana sii wadi doonaa. waxaa intaa dheer dadka jaamacadda ku xiraysan oo aqoonta sharciga inoogu maqan oo iyaguna rajaynayna wax badan inay soo kordhin doonaan markay kusoo biiraan systemka. laakiin maxaa loo baahan yahay kuwa inoo soo baxaya iyo inta hadda inoo joogta iyo duruufta aan hadda ku shaqaynayno in guddoonku ay xil iska saaraan in aynu sidii ugu habboonayd dadka adeeg lagu gaarsiin lahaa aan ka shaqayno oo inagu aynu culays saarno. shirweynahan ayaa waxaa laga saaray baaq, waxaana baaqa soo jeediyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Liibaan. sidaan wada ogsoonahay shirweynaha kalfadhiga maxkamadaha deegaanka waa kalfadhi ku aasaasan dastuurka iyo bayaanka lagu aasaasay maxkamadaha ee tirsigiisu yahay 206/2013 lana qabto sanadkiiba hal mar, kaas oo sanadkan 2017 ka qabsoomay magaalada Jigjiga 25 ilaa 28 bisha sane. warmartiyeedka ka soo baxay markaan ku bilaabo qodobka horeeya. in kor loo qaado xaqiijinta sareynta sharciga iyadoo la xoojinayo ilaalinta xuquuqaha dastuuriga ee muwaadiniinta. 2 in kor loo qaado madax bannaanida garsoorka iyadoo la hirgelinayo nidaamka garsoorka lagaga fogeynayo faragelin kaga timaada dibadda. qodobka 3 in kor loo qaado dhexdhexaadnimada garsoorka iyadoo la suuro gelinayo nidaam garsoor oo ka fayow nin jeclaysi, qabyaalad iyo laaluush. qodobka 4 in kor loo qaado nidaamka isla xisaabtanka iyadoo la xoojinayo qaabilaadda cabashooyinka shacabka danlayaasha lana dhageysanayo waqtiga ku habboon lagaga jawaabayo. qodobka 5 in kor loo qaado tayada go'aanada garsoorka ay gaadhaan iyadoo la kobcinayo aqoonta iyo xirfadda garsoorka dhinacyada sharciga iyo adeegsiga aaladaha casriga. qodobka 6 in kor loo qaado hufnaanta adeeg bixinta hay'adda garsoorka si muwaadiniintu u helaan adeeg bixin garsoor
oo degdegsiimo leh kharash tashiil leh bulshadana wada gaadha gabagabadii waxaa shahaado sharaf la siiyey guddoomiyaashii maxkamadaha sare ee degmooyinka iyo gobollada iyo magaalooyinka ee shaqada wacan soo qabtay iyadoo dhammaanba guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalidu uga mahadceliyay shaqada wacan ay wada qabteen inkastoo kuwan ay ahaayeen hormuud